هلا السلام عليكم أصحابتي قالي قسيتهين زيكو بردي زيكو ورقشة أصحابتو إدي سلامة سلاقة عليها ودي إدي سو مريني أصحابتو فكرة يرامات إيقو سو دحدي دونيدا إني dad jiraan waxyaraacaha ogaada ma fahantii haddaa qofkaasoo kale tahid advice arbaa maanta inuu ku siiyo dhageyso dad wanaagsanaa jiro oo qalbi wanaagsan dunida dadka qalbiga wanaagsanna badanaa dad waxaa jiro oo advantage ka qaato shaydaanka maxallaha wuxuu ka faa'iideystaa dhibaatada bini'aadanka wallahi billahi taala haddii oo qof wanaagsan aad tahay qalbi wanaagsan aad tahay maxallaha always dhibaato qaala kulmaysaa always dad xubnaa la kulmaysaa always dad ku dulmiyaa la kulmaysaa wallahi billahi sometimes xataa dadku ku dulminaayo dhibaatada ku geysanayo maxallaha farxadda aad necbaanayo xataa sometimes waxay noqon karaa dad kugu dhow ma fahanti maxallaha kugu dhow aad ka malaysan karin sometimes aad iyo aad maxallaha farxadaada deganaantaada maxallaha nacayo oo always rabo inaad dhibaato gashido oo always rabo inaad dulmi gashido oo always rabo inaad mashquushid walaalahaaga waa sometimes xataa dad waxaa jira waalidkooda xataa dhibo waalidkooda necab yahay sometimes shaydaanka xataa wuxuu dhexgali karaa waalidkaaga hooyadaa dhexgali karaa wuxuu dhexgali karaa walaalaha uu dhexgali karaa dadkaas ayaga ma ogo waxay ku necab yihiin xataa ma ogo waaye maxallaha laakiin shaydaanka ka faa'iideysanaa ma fahantay wuu ogyahay dadkaas inaa aaminaysid ay ahayn dad oo maxallaha ka filinaysa inay ku xumeynayaan laakiin always maxallaha wuxuu ku gelinayaa dadkaas maxbada u qabtid ayuu wuxuu ku gelinayaa xumaati ayagana si always ay ku daba jaraan ay ku maxallaha lugooyaan ma fahantay so maxallaha ku ogaan kartaa dadka ku lugooyo aniga recently aan bartay dadka maxallaha in maxallaha business yadeeda ka qarsado badana maxallaha shaydaanka wuxuu wax kastu dhageystaa afka ka soo baxo sigareeta ahaato wax kasta ahaato waxyaalaha wanaagsan waligaa ma aragto wax wanaagsan adoo qof u sheegay waalid ama walaal ha ahaado wixii ku shaqayn waay oo wixii maanta u sheegtay barina wixii oo kala daataa arkaysaa marka dadkaas shaydaanka ku dhex jiro way ka faa'iideysanayaan maxallaha waxyaalaha afka ka soo baxayna maba ku shaqeynaa ama loo xataa qofka inuu niid oo maxallaha maseerka qabto envy ka qabto oo maxallaha il uu ku soo daba diro marka haddii aad qof dadka dhageysto waxay sheegaan ama aad qof maxallaha oo hayaraaca waxaa iskaga jari kartaa in maxallaha wax lagu sheego ama qashid ama sheegi rabtid waqti la qaadatid la fadhiiso maskaxdaada ka shaqeeya ana waxaa bartay take a minute or two maxallaha waxaan se u dhaceen ama xataa qofka hadii lagu dhaho maanta hadii lagu dhaho deeqo maanta waxay balaan garaysay inay wax xun kugu samayso ama deeqo maanta waxay balaan garaysay gurigeeda daa'imaad inay ku dilayso ama maxallaha cabitaan waxay kugu darayso ama maxallaha marka aniga maxallaha ama dhameystiran magaceerin deeqo marka dhameystiran waa taqaanaa who she is waa taqaanaa maxallaha wanaageeda waa taqaanaa waa taqaanaa ani ma fahantay in I'm not capable of waxyaalahaas inaan sameynaa marka la fikir ka fadhiiso qofta maxallaha deeqo ama dhameystiran maxay sababtay waxaas igu sameeyay maxallaha waxaan ma ka suurtoodaa maxallaha aniga maxaan sameeyay waxaas igu sameynaysa marka always waxyaalaha ama qashid ama qof ku sheego qofkaas waxa laga yaabaa shaydaanka inuu adeegsanayo inaad la fadhiisatid waaye inaad quraanka akhrisid waaye in maxallaha ilaahay ka baratid waaye the right way inuu ku siiyo ku fahantid waaye qofkan waxaan uu kugu sameynaya ma fahantay ama any other advice xataa lagu siiyo dad waxaa jiro dad guryahooda inay ka dumiyaan guryo kale ay ku faraxsaneen ee waxyaalo ay ku tareen habin ka heleen just to watch them suffer ma fahantay u galinayaan ma fahantay so why does this person want you to do this maxallaha that's my whole point inaa ka fikirtid waaye qofkan hadduu maanta gurigaaga farxadaada ka saaro halkuu ku wadaa because asaga ma aan qofka farxadiisa burburna asaga ma wax gurigiisa burburna asaga ma wax shaqadiisa burburna asaga ma aha mayada ma aha waxa dadka dulmi ku dhacay ma fahanta is you but shaydaanka it will enjoy inuu fiirsado dhibaatadaada setbackaaga inuu fiirsado inaad dulmiga galayso fiirsado shaydaanka waxaas uu jecel yahay ma fahantay marka maxallaha marka hadaa qof tahay wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo dadka iska aamino I used to be like that wala dhibaatooyin badan aan noloshayda ala soo wajahay just listening to people محلها
telling people my stories ما فهمت dhibaatooyin badan igu soo dhacay am still wallahi ilaaha igu aadiyo maxaa qalbigayga ii adkeeyo ha ibaro sida dadka xogteeda wanaagayga ama xumaanteeda ama wax kasta noloshada soo wajooyinaan ka qarsado ilaaha ibaro idinkan ilaaha idin bara marka saarbayna idin sheego wax kasta marka lagu sheego ama wax kasta marka arabtid qofka u sheegaysid ama qofka la wadaagaysid ama qofka wax ka dhageysanaysid iska ogow insha Allah waa salaamada fiidiyoyadeedii waxyaalaha soo gudbiya ka hesheen fadlan maxaa lahaayay ii follow gareeya channeldeeda insha Allah YouTube ka fiirsada videoga ama TikTok ka fiirsada waa salaam ma khayr aad rajeenaya assalaamu calaykum bye